dowladda Turkiga ayaa bilowday markii ugu horeysay inay dalalka caalamka ka iibso diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dunida sanadkan sii dhamaanaya ee 2020ka saameynta badan ku yeeshay ee dalkeedu ay farsamaysatay. furimaha dagaalka ayay guulo waaweyn ka soo hoyeen diyaaradaha dagaalkan duuliyaha lahayn ama iswada ee dowladda Turkigu ay soo saartay, waxaana lagu tijaabiyay dagaaladii Suuriya, Liibiya iyo kii ugu dambeeyay ee dhexmaray Armenia iyo Azerbaijan. Ankara ayaa si toos ah garab iyo gaashaan ugu noqotay ciidamada dowladaha Liibiya, Azerbaijan iyo xoogga Sunniyiinta ee ka soo horjeeda rejimka Bashar al-Asad-ka Syria, waxayna diyaaradaheeda ku taageertay dhammaan howlgalladaas. diyaaradda caanka ee lagu magacaabo Bayraktar TB2 ayaa lagu arkay fagaarayaasha dagaalka duqeymo toos ah oo ay u geysanayso gaadiid ka gaashaaman, iyadoo sameynaysa muuqaal duubi toos ah oo cajiib ah. heshiis ay diyaaradahan kula wareegayso dowladda Tunisia ayaa la saxiixay, waxaana dalkan ku yaala waqooyiga Afrika uu nasiib u yeeshay inuu helo oo uu noqdo dalkii ugu horeeyay ee diyaaradahan laga iibiyo. warbaahinta Turkigu waxa ay ku dhawaaqday in Turkiga iyo Tunisia ay wada gaareen heshiis ay Tunisia ku gadanayso diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dalka Turkigu uu soo saaray. taasi waa mid muujinaysa sida ay Ankara ugu qanacday inay ka iibiso hubkan dowladda Tunisia oo la rumaysan yahay in xisbiga gacanta ku haya talada dalkaas iyo waliba sidoo kale xisbiga isna maamulaya Ankara ay afkaarta siyaasadeed iyo mid diimeedba ay aad isugu dhow yihiin. heshiisku wuxuu noqonayaa kii ugu horeeyay ee lagu iibiyo diyaarado aan duuliye lahayn oo Turkiga lagu farsameeyay, waana tallaabo casri ah oo guul u ah militariga Turkiga oo la rumaysan yahay inay awoodoodu sare u kacayso waqtigan. Ankara boqolkiiba 70 dhammaan wax soo saarka xagga militariga ayay isku filnaansho buuxda ka gaadhay, waxaana ay tabarucaad xagga militari ah siisaa dalal badan oo Islaam ah oo ay ka mid tahay Soomaaliya oo ay u tababarto qayb ka mid ah ciidamadeeda difaaca, ayna hubaysay guutooyinka lagu magacaabo Gorgor iyo Haramcad oo ka mid ah ciidamada xoogga ee Soomaaliya. sida uu tabiyay wargeyska Haberturk, shirkadda lagu magacaabo Tusas ayaa soo gabagabaysay heshiiskan kuna wareejisay 3 diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn dalka Tunisia. wargeysku ma bixin faahfaahin dheeraad ah iyo macluumaad la xiriira halka lagu kala wareegsaday dhaqaalaha lagu bixiyay ee Tunisia ay bixisay iyo Turkigu lacagta ay sheegteen. hase yeeshee waxa soo baxaya macluumaadyo kala duwan oo muujinaya in Tunisia iyo Ankara ay isdhaafsadeen wax badan oo la xiriira arrimaha militariga. in Turkigu farsamadiisan gaarka u ahayd u saaray dibadda oo uu bilaabo iibgeynta diyaaradahan waxay ka dhigan tahay horumar uu gaaray. dhinaca kalena in naqshadda ama farsamada laga helo ayaa ka dhigan inay ka gaashaamantay xukuumadda Erdogan. Tunisia waa dalkii ugu horeeyay ee Carbeed ee iibsada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Turkigu uu farsameeyo. maalmihii u dambeeyana dalabka diyaaradahan ayaa soo baxayay xilli ay soo kordhayaan macluumaadka sheegaya in dalalka Carabta qayb ka mid ah, gaar ahaan kuwa Khaliijku ay quldarreynayaan sidii ay u heli lahaayeen diyaaradaha dowladda Turkigu ay farsamaysay ee aan duuliyaha lahayn. laakiin sida ay Ankara u aqbali doonto tallaabada ayaa ah mid ilaa hadda dhammaan dhinacyadu ay isweydiinayaan, waxaana muuqata in Ankara ay horumar weyn oo militari sameynaysay 3 sano ee la soo dhaafay.